magaalada Johannesburg xaafadda Soomaalida ee Mayfiya maalmihii la soo dhaafayay waxa ku soo badanayay dhaca loo geysto dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasi waxa la iska dhacaa telefoonada gacanta baabuurta mararka qaarna waxa la isku soo jabiyaa guryaha ayaa la isku soo jabiyaa xilli waxa la marayaa run ahaantii gabdhihii Soomaaliyeed laga siibto dharkii dhaxanta ay ku labisnaayeen walow lagu jiro waqtiyada qabowga 22 habeen gudahood 37 telefoon ayaa lagu qaatay inta la og yahay waxaan la ogeyna way badan tahay nasiib darro dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo amniga CPF ta loo yaqaan ama Community Police Forum iyo jaaliyada ama Community Board Somali Community Boardna waxay wali isku fahmi laayihiin sida ay iskula shaqeyn lahaayeen arintaasna ay mirdhal ooga sameyn lahaayeen waxaan mikrofoonka raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle la dhaxmaray qaar kamid ah jaaliyada waxaan booqday qaar kamid ah gabdhihii dhibaatada ay soo gaartay wax ka weydiiyay sida ay dhibaatada u dhacday sidoo kale waxay la taagan mid kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo laga qaatay telefoonka walaal soo dhaw magaca Xafiifo Maxamed bal sidee wax u dhaceen sideena telefoonka laga qaatay gurigeyga ka soo dagay dukaanka imaaday waxaan wacanay taxi inta taagnay and todoba gabdhood dukaanka ku joognay gabar kamid ah waxay dhahday lixdii iyo baray ahayd roob da'ay qof meesha jooga ma lahayn qof walba gudaha ku xareysnaa ani marka gabar waxay dhahday waana lahaaya saddex nin soo gashay marka ma kala wareegay irida ka baxnay baskoolada madaxa iga saaran aan ka war helay baskoolada madaxa iga saaran markaan ka war helan waana la wada baartay qof la taabtay ma jirin laakiin baskooladan lagu baarinay waa cabsanayna anaga ma ahadlin lacaga la qaatay aynu cadadkeed inta wahaayeen 4,000 ahayd iyo ma aqaani iyo laba iPhone 13 Samsung la qaatay todoba gabar ahaydeen marka laba iPhone iyo hal Samsung la qaatay ha gabdhaha kale jaakadaha ugu jirtay and then markii ana kadibna la weydiiyay la telefoonada intay ku jireen oo jaakadayna ugu jirtay waxaan maqlay second habeenkii ku xigtay gabdhaha jaakadaha laga siibanay so I think qof Soomaali la shaqeynayo jaakadka laga siibanayo waa gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaxnool gabdhaha Soomaaliyeed oo Mayfiya ku nool so safe manihin telefoon qaaliya iska wadana magaalada iska dhex soconayna qofna safe gareynayso malahan walaalaheena marka u sheegno Soomaalida iyo community-ga dadka meesha jooga mana safe gareyna waa la iska keen qoslaya soo waxaan ka codsan lahay in abniga Mayfiya la sugo iyo amaanada gabdhaha Soomaaliyeed dadka Soomaalida hantidooda ma markii koobaad arintan xaafadda Mayfiya ka dhacdo ha anaga markii koobaad ay nagu dhacdo way bad waa maqli jirnay inay dhici jirtay bad anaga markii koobaad ay nagu dhacaysay ahayd haga ya marka dhalinyarada amniga maxaa ugu baaqaysaa ani dhalinyarada amniga ma kala kasay iyo jaaliyadana ma kasay actually laakiin waxa ugu baaqaya in nala safe gareeyo oo amniga la sugo oo telefoonadana loo badbaadiyo oo waa la iska yaqaana Soomaali telefoon qaali inta iska soo gatay iska xarakoonay ani 1 week ma wadin iPhone 25,000 ka soo baxsho ahay isla markii la iga qaatay still telefoon ma gadan waan iyo jabsanaa because xaslay mid kala soo qaatay ama laga qaataa هذا ما صنته هذا مدن ما يعيش وأمر عثمان كان جوكني كان جوكني قبل أنا وتضوء يا توجا نصقلين توجا دي أنت تجنا إريدك صقلين ما كصقلين وكهر تجني مركا كهر تجني محلها بستولد أنا الصباحين وحنا قاعدين شدح تليفون oo laba oo iPhone iyo hal oo Samsung ah inta kale alxamdulillah way noo badbaaday marka waxa ahayd 6:30 meelahaas adiga 6 iyo 39 daqiiqo meelahaas ahayd xiliyada maqribkii ahayd ha salaad lagu maqnaay todoba ugu jirnay dukaanka todoba ku ahayn todoba gabdhood ha marka nimanka meeqahay nimanka waxay ahayn 3 ما قرية وتين قريانها قرية وتين لوا قرية ودتي هلنا قعمو وحبا كودنين هي أنا با ها هي باكس وجهي وضع مو حرنا مسدات وجهي فرنا نا وجهي وضع فرنا وجهي وضع محرنين باكس أنت رعتي أما عيرستي أو دبك عادي مجرت مياه أو ما وادور عني وادور عرني مكا قولتها كثيرني نواويني قف كلا أوراد سنة ومالهن jaaliyada iyo dhalinyarada amniga u dhaqdhaqaaqdo maxaa ugu baaqaysaa waxa ugu baaqi lahaa inay tuugadan iyo waxaan ay naga celshaan oo isku soo baxaan akaaso su'aasha amniga u weydiisay runtii waa mid jirto amni darada waligeed way jirtay wayna jiri doontaa maalmahan laakiin waxa way soo ziyaaday oo
saad aragteen oo maqasheen gruubada mar walba dad moobeel laga qaatay gabdha katiina iyo dhaga laga furtay dukaamo la dhacay baawro la jabsaday baawro macna la xaday wixii way soo ziyaadeen sidee wax uga qaban karnaa anagu dad raydaan nahay community aan nahay hadii community-gaan intaan isku imaano dadka wax garadka ah aqoonyahanka ah ay isku yimaadaan iyagoo kaashanaya dawladda iyo dhalinyarta CBF taya waxaan aaminsanahay in wax laga qaban laakiin waxa muhiim ah in la helo dad amniga ku takhasusay wallahi aniga kula hadlaa lafteeda dhowr jeer qori lagu qabtay irideyda waliba gurigeyga iridiisa ma guriga xaafadda iridda ha maxaa lahaa dhalinyaro looga qaadanayo arrinta galaayo oo waanarka looga qaadanayo horteeda looga qaadanayo waxa qaar jaakada laga siibtay moobeel laga qaatay laba group oo kala arkay oo horteeda wax looga qaadanayay yarka ila degan iridda looga qaatay soo albaabka furayo baa looga qaatay maxaa la dhahaye moobelkiisa looga qaatay marka waxaan wax aniga igu dhaco oo wax adiga kugu dhici karo wariyaha oo wax cid walba oo habeen walba dhaca waay marka waa in hordada ka kacnaa oo baraarugna intaan ka badan waxa iimaanaysa in hadhow la ganacsan waayo oo la shaqaysan waayo هذا ما سنتح بعض الشباب تي في sida wanaagsan ay community ugu shaqeynayso warbaahinta sharafta iyo qiimaha badan shabeelle aadan u taageersanahay mar walba waa mahadsantihiin walaal runtii xaaladda magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Mayfair waayada dambe waxaa ku soo badanayay niman tuuga ah wadanka Koonfur Afrikaanka u dhashay taleefanada kuwa dafa iyo dad bistoolada wato oo guryaha iyo dukaanada galo oo dadka shacabka ay mar aan digtoonayn sikidis ku dhaco marka waayada dambana waxaa socotay dood sidii looga hortagi lahaa barnaamijkaas baraarug bulshada hadda uu jira baraarug community uu jira insha Allah taala waxaan filayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay xal u yimaado kullay barnaamijka waxa uu muhiimadiisa ay leedahay inay u istaagaan culimada diinka Soomaaliyeed ganacsatada iyo dhammaan dadka activistiga u dhaqaaqa bulshada marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa miro dhal badan inuu ka iman doono waana soo dhaweynaynaa qaabka ay wax u socdaan insha Allah taala waxaan leeyahay kullay baaqa andira wuxuu yahay waa mas'uuliyad wadareed loo baahan yahay qof walba oo muslim ah oo Soomaali ah oo ku nool xaafadani Mayfair ee Johannesburg inuu istaago mas'uuliyad gaar iska saaro go'aanka uu qaadanana ay tahay go'aan midaysan oo la leeyahay bulshadan in caruur ha noqoto haween ha noqoto dadka danyartanaha gaar kale ha noqoto inay baahiyaha gaar kale ha noqoto Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Johannesburg xaafadda Soomaalida ee Mayfair